ku bilowna wasiirka amniga ee Puntland ayaa ku adkaystay in xilka uu wareejiyo taliyaha ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Puntland ee soo gaabiyo barnaamijka soddonka daqiiqada oo shir jira magaalada Boosaaso ayaa sheegay inaanay jirin waddo kale oo u furan ee hoggaanka hay'adaasi. hadalkan ayay mid kadib markii Arbacadii hadal qoraal la soo dhigay barta uu Facebook ku leeyahay ciidanka BSF oo lagu sheegay lagu diiday taliye cusub oo soo magacaabay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ilaa haatan war kale lagama hayo hoggaanka BSF. wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Gallan ayaa shirkaasi jirayd kadib waxa uu waramay wariye Maxamed Xasan Dhal oo marka hore weydiiyey arrimihii uu shirka jirayd kaga hadlay. بسم الله الحمد لله aad baa mahadsantahay ujeedka kulanku wuxuu ahaa isxog waraysi xaaladaha amni ee gobolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso oo aanu saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaybahooda kala duwan aanu kulan la qaadanay iyo awaamir la farayay in ay fuliyaan kadibna waxaa noo xigay shirkii jaraa'id oo hadeer aan naga qabateen madaxweynuhu xilka qaadis wuxuu ku sameeyay agaasimihii BSF-ta agaasimo cusubna uu magacaabay BSF page-kooda Facebook way kaga soo jawaabeen idinkuna hadda shir jaraa'id baa qabateen waxaad sheegteen wixii aad u timaadeen magaalada xil wareejinta ka mid inaysan hirgelin maxaa hor taagan in xil wareejin ay dhacdo aad baa u mahadsan tahay horta waddanka nidaam baa ka jira iyo kala dambayn qofku waa khaldami karaa waxbuu ismoodsiin karaa laakiin at the end waxay ku dhammaanaysaa sistamka iyo nidaamka dastuuriga ah ee waddanka ka jira in loo hoggaansamo taliyihii BSF madaxweynuhu taliyihii hore BSF xilku ka qaaday taliye cusub uu magacaabay wax kale oo murana iyo dood iyo mid dambe jiraan xilkaasi waa inuu u kala wareegaa labada taliye oo midna ka degay midna soo fuulay wixii kaloo soo hara waa hadal badin iyo hadal tiro inuu laba maalin iyo qaatana eedeeda annaga waxaanu saaraynaa agaasimihii hore oo xilka hayay oo xilka laga qaaday isagaanu eedda daahidda aanu saarayna waxaanuna rajaynaynaa inuu dedejiyo oo xilka wareejiyo xil wareejin ma dhicin sida muuqata ciidamadii BSF ee furimaha joogayna sida taliyaha daraawiishtu uu sheegay way soo baxeen xeradii magaalada Boosaaso bay joogaan bal furimihii marka ka war aad baa u mahadsan tahay dowladda Puntland waa dowlad ballaaran oo ciidamo fara badan oo kala duwan leh hadday dhacdo in meel ka mida meelihii furimaha ahaa ciidamadu ay deganaayeen ama ay ciidan yaraan ay ku dhacdo ama ciidan markasta waa gadoodaayo de waynu naqaanaa nidaamka ciidan wuxuun baa laga yaabaa inay gansadaan oo ay meesha banneeyaan arrimahaas kale hadday dhacaan waxaa jira oo diyaarsan colol fara badan oo loogu talagalay meeshii baahi ka jirto immediately inay buuxiyaan sidii baana dhacday haddii ay ciidamadaas furinta jooga ay soo banneeyeen wakhti badan ma aysan qaadan markiiba ciidankii soo baxay ciidan laba jibaarkood ama ka badan ah in ay fariistaan fariisimadii ay ciidamadu ka soo baxeen warkii halkan wuxuu u badnaa fariin iyo baaq loo dirayo Asad iyo Maxamuud iyo taliyuhuna uu ku celceliyay maxay tahay beerlaxawsiga dawladdu ay wado adaa saa u dhigay anagu meesha tan beerlaxawsina ma yaallo hadal jiricsanna agtayada ma yaallo digreetaa soo baxday ninbaa xil laga qaaday ninbaa loo magacaabay waa inuu xilkaa kala wareego wax kaloo hadala ma jiraan haddii aanay dhicin way dhacaysaa nidaam baa waddan ka jira weligeeday dhici jirtay way dhici jirtay ayaama xil isku adkeeya oo xoogaa isagu markaa laakiin at the end xilka waa uu wareejin jiray maxamuudna waddadaasuu maraya xilkan uu wareejinaya waxaa muuqata in culays uu jiro magaalada Boosaaso marka xaqada laga hadlo oo ciidamo badan ay soo galeen dawladda iyo ciidan kale dawladda BSF ba shacabkuna arrintaas cabsi bay ka qabaan maxaa adoo wasiirka amniga sheegaysa arrintaa waxba kama jiraan baan oranaya ciidamadii BSF-ta ahaa ee ka soo baxay furimaha waxa ay joogaan xarunta BSF-ta waana annagii haddeer amrayna inay xaruntooda ku nagaadaan ilaa amar dambe inta ay xil wareejintu dhammaanayso ciidamada kale ee dowladda Puntland oo aan markaa BSF-ta ahayn Boosaaso horey bay u joogeen ciidamo kala duwan baa joogay kuwa hor la imanaya amnigana khalkhal kuma aha waxay adkaynayaan amnigii Boosaaso ka jiray waxa ay tagayaan fariisimadii loogu talagalay shacabkana dhib kuma aha amniga Boosaasana inay wanaajiyaan mooyee wax khalkhalaya dhiba kuma aha wasiir ugu dambeyn haddii wax isbedeli waayaan muxuu yahay qorshaha dawladda horta sideedaba waxaa fiican qofku inuu optimism noqdo ma wanaagsana inuu qofku noqdo qof aan mutafaa'il ahayn mutafaa'ilnimada wanaagsan tashaa'umku ma fiicna waxba ma dhacayaan shida ma dhacayso
amarka dawladduna wuu shaqaynayaa digreetada madaxweynuhuna sida ay tahay bay u dhaqangelaysaa intaasaanu shacabka u sheegaynaa intaasaanu meediyaha marinaynaa waana wax normal ah oo dabiici ahaa oo mar walba dhici jiray marka waxba yaan ummadda beenna loo sheegin khalkhalna la gelin aad ba umahadsantiin kaasi wuxuu ahaa cabdisamed maxamed gallan wasiirka amniga ee puntland oo u warramayey wariye maxamed xasan dhalo oo kula kulmay magaalada boosaaso shirkaasi jaraa'id halkaasi ay ku qabteen kadib